the only time people care about وحتى إيمانشا كيما ده وما كفقير تاعي. Also here's the thing. It's this issue Somali clear تما سموت. Everywhere in the world فيري dadkan oo lacagta hayso sifo oonan maaragtay dadkan lacagtan haysanin ayna kor u soo fiirnin oo ayagu lagu soo jeedsanin they always create conflict between dadkan oo lacag la'aanta poor ka ma fahantay ama waxay dhahayaan waxay isku dirayaan dad Soomaali waxay isku diraan qabiil bay isku diraan Soomaali Mareykanka waxay isku diraan like color bay isku diraan color bay isku diraan wala madow baa tahay iyo cadaan baa taamala qof cadaana isdii kan madowga maxaa meesha keenay amba maarta cadaan baan hay maxaa la jiray maxaan waxa u heli waa asaga madow waxaan u haysto waa la isku dagaalay ma fahantay it's a common maxaa la jiray thing oo dadkan oo lacagta haystaan sameeyaan laakiin annaga waxaan ugu sii xunnahay waa dadka halka dad oo waxaan nahay ana fikireen oo ku fikireen qofkan maxaa ku dilaya qofkan maxaa ku yasaya I don't think fikirka inuu yahay xaalaq I think dibka ana kan haystaa wuxuu yahay mataqaana hadda Amerikadan dad baa taajiriin ah billions of dollars sameeyno صح dadkaas taajiriinta حددنا الجوجة they dictating حتى politicians كمدحوينا نك نقناع absolutely 100% سمعنا China سيدو كالتو and everywhere الدون كمان تودم ذا وين دبا تاجرين نقضي أو وحسمية أو politics dictate قرينو صح لما دي ده تاس أنا لكن هذا مركا أركو ودم هذا حد سيدي China أو كالت Japan أو كالتو سنغافورة أو كالت ودم هذا أو إنديا أو كالت ودم هذا ما تقان حتى أمريكا ده حتى عندنا dad baa soo dhisay right dadka soo dhisay dad baa dadkaas ku dhisay ninbaa power u ahaa magac u lahaa landheer u ahaa ama cadaan u ahaa ama dad buu ka dhashay oo powerful ama family powerful oo ka dhashay beeruhu qabsaday beerahaas markuu qabsaday isbaanishuu soo aruuriyey beerihii ku falay cambihii maxaa la dhihi jiray apple-kii dhan America Walmart asaa soo daldalaa contract Walmart ka haysta right anaka why dadkeena powerful ka lacagaha haysto why meelahaas u qabsan laayihiin oo dalkan nafaqadiisa iyo wixiisa at least ta ana meesha pointiga aan ka hadlaa waxay tahay why anaka waxa ta adiga powerful waaba tahay magac waaba leedahay magacaan ma ku produce gareysid wax dadkana anfacaya dalkana anfacaya hatta hadii xaqdarada kale right xaqdara maanta dadka lacag soo gelinayo ilaanada tan oo sadaqada xaqdaradeedan ku sheega tan sadaqada qof Soomaali oo ka qadina aan qofka lacagtaas qaatamo qof kale oo ka qadin kara malaha laakiin tan markuu qof wasiir beerta Soomaaliya la wareego mise daawada Soomaaliya la wareego mise sokorta Soomaaliya la wareego sokorta intay soo galaysaa wadankii soo galaysaa waxa su'aal weydiisma why dadkan lacagta haysto maxaa la jiray wax ugu qabanay ma dhihno I'm answering this question very simple because dadkan wadan kasta fiiday dadkooda markay lacag yeeshaan the first thing they look for is how they should make more money within their country لكن قف Somali markuu lacag yeesho the first thing they see is how the fuck do I get out of here you see taasan ka wada marka anaka leave this country system dad taajiriin waan leenahay I know Soomaaliya dad badan oo taajiriin jiro dad badan oo lacag haysta jiro marka adiga powerful noqotid oo lacag haysatid mise politician aad tahay isku day wax khayraadka dalkan ku jiro ina adiga la wareegtid si ay dadka meesha joogaanna beertan sidii dadka beeraha falanayay u keen maxaa la dhihi jiray waxyaalihii lagu falayay equipment-ga wixii oo dhan حتى labor problem هنقطع $1 سي مالنتي ونكان دتك وديله $1 at least لكن ودنك وحبو سمينه لكن ودن أنا برادر وحبر سمينه إنه حبك سو بحينين أو بس لا قفكي ورهدا موس سوماليا ما أنت موس كوفي عن سوماليا سميسو how can ودن كله سوماليا موس وكيني كرا فيري إثيوبيا ودرس كسومالي سماه ها سومالي وحي دو في ساعة ملا مقرني ملاي any type of محل جري marine life عملا بدا إثيوبيا محوسه سوق لسه سومالي مقرني قاد no way yeah you Kenya the same فيري أنت فكرة دي قاعدة اللي جوسو قلنا you give life to someone else. Wow. مايا حسن was yes هرتوري it was with this مدحوينها ما مدحويني كورس one of them I was so disappointed when I see that. I think they did an exchange ميا كون إنا كان ديوان كون كان دي كان. أنا وحنا كوسينا ملايين كوسينا محل جري all this محل جري good محل جري source of محل جري food bank كوسينا but then you give us poison عملا فير. But is the same thing like topic and أما أنت كادلون is like
why are we all complicit, right? Why are we aamusannay? صح Even aamusnaanta is not even qof social media iska imaada iska ceetamaya. صح But everything xataa wadanka ka socdo, right? صح. dadka Hadda waxaa Soomaali dhahaysin, why jooga- beer loo abuuri la'yahay? dadka Soomaali jooga wax way Yeah. dhihi kareen way dhihi kareen why beer loo abuuri la'yahay, why qaada loo soo gelinaa, all that maxay dhisaysaa unproductive society. Unproductive society hadday ka buuxdo adi haddaa ganacsi leedahay, you wanna go to New York because dhalinyaro oo energy leh oo skills lahaa wada buuxa, right? صح. mid walba waa heli kartaa. صح Soomaaliya system dowlad ma lahan, dowladdii waa unpredictable. صح biri ka maalina wax iska dhici karo, wixii dhan adume صح. ganacsigaagana wuu ka baxay, right? صح ganacsi wuu jiraa laakiin kuwa joogo only waxay ka fikirayaan waxaa waaye gasac caana booro iyo waxyaalaha dadka consume gareynayan soo geli gad lacag badan ku hel sii bax. dadaa xataa Soomaaliya Japan oo dhar ka buuxa ma aragtay, China $50 looga soo qaadanaya, $5 looga gaday dadka $4. daa Japan kaliya lacag badan laga sameynaya. So they making money either way dadka ganacsatada. ba kii beeraha waaweyn kala falanaya iyo waxaas waxay u baahan tahay dowlad dhisan oo dadka contract dhul siinayso. hadda ayaan horeeto masaakiimiina laga xaaqayo soo ma ahan, meesha dhan laga burburinayo guryahooda iyo meesha uu ugu yaale oo dowladda iska le la dhahayo. That same example I heard that same example Go ahead. qof hadduu oo beer ama wax tabacani lahaa ama ganacsi weyn oo dhisani lahaa, one maybe dad skills oo shaqadii qabanaya ma lahan because Soomaalida waa laga faantami. hadda dadkan beerta ka faantamo Cabduul Aadheese Mareykanka the next 5 years ragga jilbaha dhigto oo tubada musqusha hoos hagaajiyo 300 kun ay sameynayaan. So farshaxan deegana meeg lacag badan oo 300 400 balaakiin anaka waa iska faanina. Even qaxootiga markii la joogay Koongoliiska ma aragtay isbitaal ay ka shaqeynayaan, meel walba ka shaqeynayaan $200 $300 ay qaadanayaan. That's a dignity for qof inuu ka shaqeysto, right? Soomaalida waa meeshaas u tagay ma ka shaqeynaa waa laga in faantami. $300 lagu soo diri lahaa lagu soo dir lahaa inta shaqeysto a lot of money. waxaas maxaa ka sii daran dadka oo maaragtay engineerska oo fundiga dhahan Soomaalida. Yeah. Those people are still looked down at them. gurigan inay dhisayaan Ayaga dhisay, yeah. adduunkay ayaga socodsiinayaan. Soomaaliya haddaa taa shaqada maxaa waaye fundi waan naga tagaa Naga leeyahay tagaa. basbaariya doo ordaysaa shaati cad waa lagu xiray dowladda u orday, waa dowladda loogu wada orday horta. fikir this shame maxaa la jiray les toxi annaka nafta naga qaaday ma fahantay dad qaarkood waxaa maaragtay sida dowladdeena ugu weynba maalin hore maxaan dhahay they have PhD in toxi ma dhihi jiray Yeah. Toxi, yeah. period if you're not even shameful oo dak dhahaynin maxaa la jiray waxaan wax xun waaye aan iska celino aan iska dayno always dhibaatadan baa aan haysanaysaa Yeah. No, ani haddaan aan ku soo laabto su-aasheeni koowaad oo ahayd maxaa la dhihi jiray tribalismka. dhibka ugu weyn oo haddana leeyahay mataqaanaa waxaa waaye qof dhan baa qalad sameynayo. khaladkaas waxaa la leeyahay horta aan u kaadinaa ogaano qofkan dadku ka dhashay. qofkiyaa wuxuu leeyahay sug bal horta yuu yahay waa soo fiirne. Wow. macnaha Why does waxaa that rabtaa matter though? waxaa rabtaa inaad ogaatid hadduu qabiilkaada yahay yunagana ma ceebeynaysid ma ka hadlaysid waa u aamusaysaa. nagada ayaa leedahay niyo nagada dhihin saasa nagada anakena baxdilaysaa mise qabiilkeena wax yeelaysaa kadaa saasa may ka fikiraan qofka qabiilka bahdilaya is the one waxaan xun ka sameynaa Sameynaya, yeah. qofa hadda ka horaan waxaan arkayay gabar baa waxay soo fadhiisatay TikTok. waxay ka hadlaysay nin oo si xun ula dhaqmay oo iyada qabay. sax ninkan marka waxay taagan tahay wax walba aan haystan oo iga qaatay si xunuuna ii bahdilay. ciddiisii dadku ka dhashay wixii dhan waan u sheegay cid wax igaga qabata ma laha. so hadda waxaan inta usoo fadhiista Soomaali inaan weydiisto caawinaad. sax dad aan aqaano TikToker ahoo platform haysto oo followeryaal badan haysto baa soo galay. way aqaanan qoftan qofkay tahay. ka bax live-ka ka bax wana awaanaysaa bax dami live-ka No ana way. nasoowac anakaa wada hadlayna nasoowac iyadan culeeda kama baxay meeqaan ii soo wacay meeqaan ii sheegay arrintan meeqaan arrintan ii dhahay walaalayaalow haliga qabto naana aabaanin naa haddaana la leeyahay dadkii gabdhahoodii baa TikTok ku calaacalayay. Wow. dhibka marka dhibaatada fiiri markaas we They asking normalize it. who is who instead of asking what is the problem ka see lagu xalin karaa dhibka. waxaan isweydiinaynaa yaa waa qofkan yuu yahay qofkan intuu ka imaado qofkan. community wuxuu ku dhismaa inay la protect gareeyo dadka
oo maxaa la dhihi jiray sida dumarka iyo ciyaalka iyo in la protect gareeyo oo ku dhismaa Soomaano qof dumar hadduu intuu meel soo fadhiisto oo dhib sheegto waa in loo gurmada in la dhaha maaha ka bax meesha anaka hoos nagala soo hadal qofkan wuxuu leeyahay halahan dhanaan ka soo hadlaa marka dhibka uu leeyahay qabiilkan iyo waxaana waxay tahay hadda waxa ka hadlayseen dhalinyaro isdilayso oo Soomaaliya dhalinyarada isdilayso oo Soomaaliya cunuga laga yaabaa Soomaaliya cunug kale oo Soomaali inuu dilo meesha cunugaas la dhihi lahaa dawladii waxa loo dhiibo waxa la leeyahay hal aamus anaka xalinayno why ilmaha kale waxay arkayaan cunugan higaara way wadas community caadi uu ka yahay caadi waaye waa la si lacaga xataa la sii geenayaa dadkii scenario Soomaaliya lagu diray Moscow scenario waa lagu carara dadkii aamusa wasla anagiye anaka aan xalino ilmahan marka maxay si encourage gareeysaa inta moo soo laabanaa waa anigii marka dhahday this person oo dhintay ma soo celin kartaa laakiin dibka jira wuxuu yahay xataa fiiri muhiimadda ma aha wax markuu dhaco muxuu u dhacay waxaas lama dhaho saan uga hortagnaa waxaan soo u dhicin waay the first question is weydiina waxa war ilmo Soomaaliya isdilaayo saan ku joojin karnaa ilmaha Soomaalida isdilaayo the best thing maxaa wadan waxa joogtaa gaal ha ahaado wadan gaaleed ha ahaado wadan cadaan ha ahaado cunug Soomaali ma gaal u dhiibaysaa waa cunug wax dilo waay dilaya maybe he should have thought about wuxuu sameynaa before as dhihin soo marka maxaa keenay marka wuxuu leeyahay hadaa waxaan dishid community-gaada ku protect gareena so ilmihii marka maanta dhan waxa waaye wixii way soo laabanaysaa cycle-kii soo laabanaya to the point where hadhowdii qofkii adiga waa laga yaabaa inaad dhaadwarniyahow odayaal wax meelaha jira odayaal wax ay ka qabanayaan qof hadduu dhinto oo qofkan uu u dilo somebody has to pay the consequences exactly you have to pay it's not just cunug hataa dadka ku Soomaaliya jooga hataa ama meel bay joogaan Soomaaliya diin waxay dhahan wax magdhaw lahay bixinayaan and then that's it that person faces no consequences and the issue biggest kasi darana waxa ma garanay waxaan maqlay mid baa waxa dhahay wuxuu dhahay because this is wax cad waay adi haddaan ku dilo ama haddaan gaarigaada jijibiyo ana haddaan ku dilo ogahay aniga wax ma bixinayo qabiilku dhanaa wax bixinayo saasa waxaysan laakiin adaa gaarigaada haddaan kaa jibiyo ama xoolo kaa haddaan kaa dilo ma fahantay aniga as an individual iga soo baxaysaa ma fahantay sababtoo ah fiiri qofkii dhanaabil naftiisii dhan has no maxaa la jiray consequences has no value qofkan maxaa la jiray xoolihiisa oo waxba ahayn that can be maxaa la jiray la soo qaadan karo mid kale has more maxaa la jiray value sababtoo ah qofkan wuxuu ka fikiraa haddaan asaga dilo there is no bahshi laakiin haddaan ani maan awoodi inaan qofkan u xeeyo adiga ana meel ana li qabsana dhaqan xumada hadda saa ka hadlayay sidoo kale taan ku soo xasuustay cunug dilaayo dad dhan markaan dhahay qabiil dhan baa lacag iska aroorinayo qof baa qof dhacayo hadda ka hor baa waa la yimaade waxaa la yidhaha lacag baa la iska rabaa yaa lacagta loo rabaa nin aan ogahay inuu tuug yaa lacag loo aroorinayo mafahant waa ogahay ma la hadli ninkan because of tuug waay ninkaasa lacagta loo aroorinayo markaas waxaan dhahay ma cunugaa ka dhintay ma xaas baa ka jiran maxay taa lacagta loo like no wuxuu sameeyey qof buu situation oo wuxuu sameeyey so qofkan wax buu sameeyaa dadka buu wax ku caawiyaa like community ahaan iyo waxaas buu represent gareeyaa qof buu wax been intuu u buubuuxiyay mise wax been meel u gelgeliyey baa qofkii baa la soo qabtay qofkaasa lacag miyaa mise waxaas a lagu qabsaday because situationka inaan sheega ma rabo iyo see u dhaceen is gonna make it obvious calaa kulli xaal arrintiya waxaa dhacday marka ninkan odaga ah lacagaa loo aruurinaya because of wixii uu buubuuxin jiray uu samayn jiray uu faktaab gareeyey qofkii uu wixii ka haleeyey ala soo qabsada lacagaa laga rabaa hal mar ma aha labo mar ma aha saddex mar ma aha ninkan maanta oo dhan waxaan wuu sameynaya ani marka waxaan dhahay ninkan odaga ah haddii mar walba uu qalad galo anaka aan lacag dhiibno oo lacagtii saas looga dhiibo suu ku ogaana inuu qalad galaayo suu qaladkiisu u barnaa suu u joojinaa waxaan ilan taageeranimada dadka waxbaa ka qaldan taageeranimada ma taqaanaa qofka hadduu xabsi mutaysto waa inuu xabsi galaa xabsi galaa aronkee qofku u dhashay
walaalka hadduu yahay hadduu xabsi mutaysto waa inuu xabsi galaa you know the same pointiga consequencega la bixinayn anaka xataa inaga bilaabmani qof walaalka hadda arid khalad sameynay farta ku fiiq ayaan horeeto anii Captain G marka Minneapolis ku soo noqonay airportka meesha oo transitka maala meesha oo US embassy-ga loo soo maray leenka wuu dheer yahay moogtahay leenka anagu ku jirno Abdul oo socone oo u dhownaa meesha meel kale to baagiga marka leenka soo dhaaftid meel kale baagiga soo ma jira baagiga ka soo qaadanays hadda nin kale taa waraaqadii oo lagu soo siiyay u dhiibi right asi bixisid this guy Somali baagada waa weyn soo wato dad badan anaga dambeeya cadaan leenkii inuu soo galo waraa Captain G wuxuu dhaynaa gadaal ka bilaw macnaha ani inii soo gadaal ka soo bilaw bahasha all the way aad waxa dhaafkaas waa yara dhaartay beentiisana ma ahan run waaye if you normalize behavior is going to be meel walbo qofkan ma dhimanayo kulligeen waa wada imaanay dad kale taa naga dambeeyay kaas xushmada xataa waa la rabaa taasoo kale maxay ka bilaabmani meel kaafi la jooga xataa asxaabteeda marka la joogo marmar u sheegay kaasoo gabadha joogto oo masaakiin qaadays alaabtan balaakiin ina aruurina waay right kaabka ku cabtay poured in qaad waqti ma ka qaadanaysa qashinka iska garid but if you leave it you normalizing that behavior hadana waa kasi tagi qof kale you normalize if you're leaving you better be leaving good tip there good tip too right hatta that is part of like imagine raising like your kids knowing that there is no consequences waxay doonayaan sameeyaan. That's bad. Imagine That's bad. they know that there's no consequence regardless of what they do. Imagine if you raise your kids like that. That's why on next generation ee ku jirta su'aasha Soomaaliya because next generation No, carruurtaas maxaa u malaynaysaa waxay noqonayaan they ciyaal waxay noqonayaan They on mimic rule whatever above the law why haye Soomaalida dadkoodu waaweynaa saa isku ahaa ma ka waran yeah above the law why because cunigaada markuu arko wax walba qalad walba sameeysid qof aad dilaysaa community-ga lacag bixinayo kan that's why hadda u arkaysid ilmo yaro meeshan ku dhashay oo qabiilka hadlaa arkaysaa bara That's Absolutely. so disappointing. ilmo yaro Wallahi. teenagers 14 15 16 arkaysaa oo iskula socdo because of kan qabiilkan waay kan qabiilkan waay intee kii maanta mataqaana guriga waxa la fiiri qofka ku project gareenayo mise qofka wax ku dhiyo mise qofka san ku yeelayo qabiilkaada raadso Yeah. qofka san ku sameeyna qabiilkaada raadso cunigi markaas maxaa waay Soomaalinimo meeshuu fiirin la community meeshuu fiirin la qabiil u raadinaya Is it qabiila la iskula socda waxa dilmada keenay maxaa waay qabiila la isku Qabiil, dilaa absolutely. waxa lagu leeyahay meeshan blackan heblo iskale war meesha America la dhax barada blacka qof iskale ma laha wallahi beenta Yeah, meesha America la blackan cid iskale ma laha America nin cadaan baa dhistay 1000 years iska ago ma lihid. ma fahanta iska ma lihid blackan so blackan cunug yar oo teenager ah qiyaali ku nool oo isku haysta blackan inuu asil leeyahay mise dadkiisa leeyahay mise qabiilkiisa leeyahay For example, hadana point in a way because you guys are bialatin, right? Arura qabtiin. صح. What do you think? But idea again sometimes حتى marka arko I can predict behavior wuu dhici hadana, right? Yeah. Is it me that I'm biased? Marka Mall of America la tago ee maalin ciid ee tahay caruur yar yar oo Soomaali oo dadka dhan disrupt gareynaya jiro meel walba boodayaan in moolka dhexdiisa isku dagaalayaan xabad isku balkeenayaan kuwa yar yariis xataa foogale dadka waaweyn kuwa yar yariis xataa meelaha lagu boodboodi wax walba do you think as like waalid ahaan guriga marka ilmaha la tarbiyanayo caruurtaada marka waqti badan aad la qaadatid aad la joogtid oo meel walba aad la aadid xataa banaanka geysid there is a high probability cunigaaga he will behave way better Yeah. ku daba soconi wuu kula joogaa right do you where's that dhibaatada intee ka imaataa hadda badanaa There's koor actually ba had the Yeah. sorry. you good go ahead There's actually had the sharci Mall of America lagu sameeyay that waxaan sababtoo ah and sharci a law does or like a policy ma soo degaayo until Yeah. dhibaatada ay badatay ma Yeah. fahamtay? sax This is how you know dhibaatada ay sheegaysa way badan tahay hadda policy waxaa jira ciid walba markay noqoto Soomaaliya there's no one or minor aha or without qof oo adult oo la soconin ma garanay ma geli karo Mall America sababtoo ah it's been too many times ay waxaan dhacday dhibaatadan so marka dadkii galaha taa naga yaabeen dadkii moolka iska laadeen ma soo galayaan so policyga daraadeena loo sameeyay yes cid kale loo sameeyay ma jirto because That's how ciidaaba bad- lagu leeyahay bas that's how bad annaga dadkan maarata carruurteena waalidiinta dhaqan xumada ay u leeyihiin ma fahantay because cunug waxa waaye wuxuu sameeyaa wuxuu waalidkiisa ku arko hadduu cunug like I said the question I ask if you raise your kid to no consequence amala best believe that waxay doonayaan sameynayaan waalidiinta Waxa uu- perception koodan ku sheega contextiga oo waalidiinta hadda ka hor
cunug baa dhintay oo la dilay xabad lagu dhuftay cunugii hooyadiis baa marka waa la weydiiyey waxaa la dhahay marka way ogaayeen cunugan meesha u socdo cunugan wuxuu u soo socday inuu dad kale uu asaga uu hadgaraya mise dilo asagii yandherab asagii in la dilo Sa'il. asaa u socday inuu wax dilo asagii la dilay hooyadii iyo dadkii iyo qaraabadii la weydiiyey waxaa la dhahay cunugan maadaama ogeedeen inuu meeshan u socdo ilan ma og tahay maanta They haddaa knew? obviously so this is the situation right Hey. haddaa og tahay inaa cunug wadaada aa dhashay oo lagu soo waco lagu dhaho cunugaada waxaas baa ku dhacay you be shocked Sax. meeshaas wuxuu ka hayba laakiin haddaa og tahay cunugaa dhashay uu yahay cunug disruptive marar badan wax soo sameeyey wax soo qalday maxaa la dhihi jiray qori haysto waxaan oo dhan daroogo ku jiro markuu ku dhaho meeshaasaan u socdaa meesha uu socdana meel aa og tahay inay tahay dad kaleeta meelay joogaan mise buuq ka dhacayo maxaa la rabaa inaad dhahdid meeshaasaa aadin mise adi inaa booliiska ugu wacdid dhahdi cunugan meeshaas u socdaa wuxuu u socdana dhibkaas cunugan meeshii tagay ciddan way ogyihiin cunugan inuu meeshaan tagay way ogyihiin meesha uu tagaayo ilmihii kale uu la dagaalsanaa inay joogaan pointigeyga marka wuxuu yahay markii la weydiiyey maamadii waxay dhahday uma maleynayn in asi la dilaayo asi inuu wax dilaa u maleynayo Wow. So she knew it so all this time. situationka waxaa waaye maybe she didn't know but iyada she took it for granted that cunugeeda iyada wax ma ku dhici karo cunugeeda le wax jajabin karo Okay. iyada le loo soo dacwoon karaa mooy iyada maba dacwoonayso What, you get what I'm saying so Fidi, sometimes what does that, Fidi, what you does switch that at the- say marka aad arrintan oo dadkeena? hadda Mall of American ku keenay Soomaalida badanaa mise waalidiinta badanaa oo Soomaalida ah dhibka noogu badan oo na haysta wuxuu yahay we think anaka cunugeena hadda ka hor baa ninaa wuxuu u imaaday gabar walaashay la dhalatay gabaree dhashay cunugtiisa baa iskuul ku dhacayso gabadha walaashay cunugteeda iskuulku way ku baasaysaa gabadha walaashay u imaada wuxuu dhahay cunugteeda iga garab waxay cunugteeda u dhacayso waa cunugtaada So, ilaa markiisa anaa meesha joogay gabadha walaashay marka ninkan nin weyn waaye way ka aamusan tahay ana waa soo kacay waxaan abti assalaamu calaykum calaykum salaam gabadhaada way dhacaysaa soomaano haa gabadhan way baasoosaa dhahay so gabadhaada doqon waay hadday gabar qof baasaayo iyadoo la socoto walaahi way ay hata wuxuu dhaw adab daran tawri aniga ma saasi la hadlaysa ma adab daran ma dhaabti sometimes runta in la isku sheego way fiican tahay but it's good. gabadhaada inaa u tagta ahayd anaka maaha cause cunugtiya waxaa siinaysaa loophole cunugtiya waxaa siinaysaa shortcut waxaa ka dhaadhicinaysaa waxaa u dhacaysaa galaaska because of dad kale because of someone else. meesha aad dhihi lahayd adiga doqon maanta cunugtaada inaa weydiisid waay Yeah. soo qof kaleeta adi kuu ridaa soo qof kale galaaskan sa igaga dhaadhicinaysaa oo galaaskan waxaan ugu dhacaya marka waalid ahaan adiga waxaa rabtaa inaad siisid excuse oo adi waalid fiican aad tahay Ilmahayga ma xumaan karaa ilmahayga ma xuma dad xunay la socdaan dadkaas ilmahoodaa xun Dadka xun, they doing good. but dadka xun they doing good or حتى if they not doing good حتى iska badhaba ilmo xun waayaba Yeah. as a parent You adiga still inaad look in the accountability, adiga yeah. bal isfeeri bal adi It's bad. gurigan maxaa ku haysaa cunigan muxuu qabanayaa Absolutely. ma fahantay marka cunugaada markaa Mall of America u dirtid oo ciid ay tahay aa og tahay Mall of kudigeena waa ognahay baraada We all kudis know it. qof walba wallahi waxaa xasuustaa back in the days markaan high school ku jiray uu Mall of America soo hadaya ahaan jiray back in the days ala dhihi jiray waraa ciida yo Mall of America everybody used to text each other I it remember. used to be the spot Wow. it used to be the spot marka qof walba waalidiin qaaraa jira xataa ilmahan yaa soo drive gareynayo meesha keenoy shaydaan maa keenoy ilmo yaroo 14 16 17 jira waaye Yeah. adigii waalidkaa cunugaa meesha Drop kusoo them tuura waa ka off tegey and leave, yeah. hadhowdi marka wax maxaa dhaysaa marka alla cunugeygiyaa lagu dila Animal cunugeygiyaa ku again, yeah. jajabay because you thought that cunugaada inuu yahay kan waxa sameynaya you never thought cunugaada kan waxa ku dhacaya inuu yahay you know what I'm saying I remember 2021 me and a buddy man Minnesota on ku cusbeen labada no Missouri came on there, right? We were new marka ma aqaanin meel la aadayo a lot everybody on with you know I dhahayno MOA at or Mall of America at Mall of America anaka we're like qof walba haduu meeshaas aadayo why would we go there amala ma fahantay so we went to Rosedale no Mr. Roosevelt ma aqaano Yeah, midka mall. ku yaala oo Yeah. Sandbox VR ku yaala marka no I don't know I'm not sure which one it was I think Rosedale. Rosedale ma Yeah. kaasa aadnay anaka Rose VR kaasa iska ciyaaran iska soo baxnay right and then
on our way home waxaa maqalnaaba like you know carruur baa meesha isku dishay No way. That same like month. back in 2021 kii ha Wow. waa la isku xabadeeyay meesha maqlayaaba and then markaa aragno TikTok laga wada buuxinayo you know back then that was when TikTok was going crazy and waxaan aragnaa 100 qof oo carruur isdaba ceyrsanayso kolba dhinac u ordayso kolba dhinac u ordayso and then there's security there police everywhere on social media I was like I'm so glad inaanan aadin Anita iga yaabayso ma garanay. Yeah. تراويح or إذا التحجد أهد مساجد كان بلومينتون كويل مقعيس مع الفاروق دارو فاروق دارو فاروق سكوش أنا كجرا I can sense المهن like دلنا يريد يروي ماشي اسكو رحت كنا وإصدقالي ماشي اسكو دقالين ميدا بحي كوبي كلو كده وبحن وحيرك بعد أفر شادة دعده literally outside of مساجد كا با ومساجد ومساجد مول اوف امريكان تو جوجا أبهي يهويدي دلي way joogaan and then hadhow waxaa lagu dhihi oo ilmeyga waa la cunsuriyeenan amasaan so pointiga in sheega waxaa waaye saran ilmo markaa arko I can predict maskaxdeeda waxay leedahay dhibaata bilaabmani rabto haddana waxaan oo way dhici rabtaa waxaan oo dhan waxaa laga yaabaa hadda aamusnaanta maxaa aamusnaanta ilmahani waxaan ka hadlaysa Yeah. iska gala waxa iska gala kuu sheegaa aamusnaanta waxay tusaysaa ilmahan in horta waxay message oo waxay diraysaa dangerous message kaasoo power iyo magac iyo qabiil baa meeshan maamulo ma aha fiicnaasho iyo cunug fiicanaa tahay iyo kanaa tahay iyo muhiimadda ugu weyn waxaa waaye reputationkaada iyo familigaa ka dhalatay iyo qabiilkaa ka dhalatay haddaa hataa qof dishid waa lagu qarinaa because of reputationka familigaa ka dhashay iyo qabiilkaa ka dhalatay mall of america tagaysa waa soo qasaysaa qofka ku arkaayo warkan soo kii yaraayo oo ina heblow ma aha waryaha kaale adeer أنا سمين ماشي أديله دور عني قاعدة قبصة ورعني قاعد قبته هذا كالها سمين هذا كالها سمين عني واحد كجوجنا مركز next generation وح أدرس أمس لكن عني جهدو أوجي community أو accountability يو قفك كلا قبنا هدو عني أوجي إنه كذا شيء أو أذك إنه كذا شيء هدو أوجي هاي عني جاز برادر وحول بوس سميه consequences كيسو أوجي عليه برادر أنا ما أنت ماشي أنا أمريكا لا عني قاعد the first lesson وبرنا محيطه ماشي أنا أمريكا لا هدي له قبته والله حر Somali maybe Somali you can get away with قبيل أهان إيه كان إيو but أمريكا هدي له قبته والله قبته ما فهم لكن عني قاعد أوجي قبيل كان أنا كذا شيء مقالة ذا قبيل كيجا كوبدن مس فاميل كيجا كان إيه مس فاميل كيجا كاس إيه is the same thing you're message right كمركم هواي yeah عني قال he takes this for granted yeah so عايشة كلام مركا نسيسي ناس أو حتى هاي how can we build a community where people can speak the truth without being attacked shamed or cut off seen ku dhisi karnaa community oo dadka ee runta dadka ugu sheegi karaan ayagoona ka cabsanaynin qofka runta sheega asoo ka cabsanaynin in ceeb ay ka soo gaarto mise in la jaro community oo jaro mise in la ataagarayo oo la dhawaraya adiga saan waaye iyo ay baa tahay buuq lagu furo because haddii lagu soo ataagaraynaayo just because of runaa sheegtay waxaa leeda baraada madax xanuun iyo buuq maxaa isku gelinaa runtaan maxay ii sheegaysaa qof walba wuxuu ka cabsanaa lahaas waay so how can we build that community uncomfortable conversation horta way fiican tahay ilaahood aa kugu naco qofka right qofka adduunka ku jecel 101 inuu meel kula fadhiisto uncomfortable conversation oo ku sheega because he genuinely likes you right qofka kale oo wax kaa galin ma aragtay aa qosto qofka miya khamri aa cabo istaaga aa ka dhaco meesha raba aa ka dhaco wax ma kugu darsanaya right ba qofka genuinely ku jecel he deeply cares about why will feedback as ku siini oo uncomfortable ka because qofka he cares about you right so dad badan Soomaali especially horta nimanka there is dhibaato weyn that a lot of men waxaa la rabaa the idea of ina iska bixisid oo ani dada hadhow iska dhahayo oo pick me ilmaleeni haddaan gabar aan support gareeyo ama gabdhahan support gabdha no as long as internally adi confidence-gaaga is og tahay an wax cadaalad daro ama dhaqan xumo banaanka ka socda aragtid say something soo istaag waxaa dhahdaa war waxaasniyo waa qalad haddii aad rabtid inaa qofkaa la debate garaysid argumentigaagii waxaaga soo dhigo right teeda kaleeto role model camal right if a lot of like dhalinyaro badan oo hadda dhibaatadan sameynayso waxa maxabadaha isku dhufanaya ama waxan if you don't step out wax ka qabanin either is gonna affect caruurta walaasha dhashay
ama caruurtaada ama adi somehow meesha usoo socota buu imaani so the best way I can think of waxaa waaye if you feel like waxaas dhibaatada soo wareeganayso aana dhibsanaysid maybe social mediahaaga maybe event ama meel ay ahaato say the thing oo uncomfortable ka ah and dee midda kaleeto oo Soomaali Maxamed kulli in la iska dhaafal rabo kansarka qabyaalada every conversation iyo team ama dad ala socotid qabyaalada aan noqoto wax oo equationka ku jirin teeda kaleeto never ever qof kaleeto oo qabiilkaaga oo qalad gale gurbaanka u tumaan والله رما قربانك أنا عادي لو قرري first of all the truth is bitter ما فهمتي like خرار ما لها يا وقرار رنت وقرار runta waa kharaar dadka haddeen maartay ay runta ayna jeclayn ma garanay integrity ma lahan ma laha absolutely hadduu annaka Soomaali haddaan dhaho I will generalize us because this is the only one term I can in generalize dadka dhan isku soo gelin karo xataa haddii aad kii aamusanaa tahay la mid baa tahay ma fahantay yeah waa you're validating kan hadlaya ma fahantay so marka runta haddaad sheegaynin ama runta haddaad qarinaysid ama wixii dhan integrity ma lihid haddii aad integrity leedahay oo aamusinaynin kan integrity la'aanta runta beenta sheegayo waa isku same baa tihiin ma fahantay yes and the only way aan dhihi lahaa qabiil is horta hore Soomaali haddii loo qabiil waa maxaa la jirayay the newborn waa ma fahantay kama taaban kartid kalama hadli kartid yeah wax walba waxay ka jecel yihiin naftooda ka jecel yihiin qabiil like Mareykan Yahuuda say u jeceliin miya I would go I mean way ka daran yihiin I would go even beyond hatta that lacag la wala bixini le I would beyond that aan dhihi lahaa dhageyso marka merit in la dhaho wax la dhaho inay Soomaalida maartay ku dhaqmaan merit waxa waaye adi maxaa taqaanaa maxaa samayn kartaa maxaa qaban kartaa ma ahane yaa tahay qabiilkee tahay yaad ka dhalatay xirfadaada ha merit based on merit inay ku hayso and qabiil haddii la dhahana I would say look at this qabiila sheegaysaa landera isku dhayaysaa tell me wax uu qabiil ahaan inta iskugu imaateen ee adduunka ku soo saarteen oo maartay adduunka laga maartay maanta horumarsiiyay oo qabiil hebel soo saaray qabiil hebel oo dhaha inta dadkiina isku imaadeen oo maanta gaarigaas baan samaynay amala oo wax u eg gaari amala ama wax adduunka anficiyay baan soo saarnay oo dhigi kartiin waxaas baan ku faanaynaa ii sheeg adduunka iska wadaa wuu weyn yahay Soomaali dheh like I'm just saying like this is just an example aan siinaa ma fahat 100% ma jirta ma ha fariiso iga aamus hayla hadlin qabiilkaada waxaas qashinka ku dar adi maxaa sameysay marka qabiilkaada ka soo reeb waxba ma ha waa you're just balloon talking marka ma fahantay markii balloonka markii airka laga bixiyo waxay dhahdaa way shuuqiyeen pretty much that's how time enough and dadka oo I would say dadka oo maxaa la jiray waxtarka wadanka ama waxtarka dadka dalka wax walba haya sidaan ku sheegay dadka maxaa la jiray blacksmiths farmers maxaa la jiray people who have maarta farsamayaqaanka dadkaas oo kale in hoosta loo fiirnaa laga daayo ma fahantay that's I would say because they are the maxalli jiray basically golden goose wadan walba ay joogaan China la dhahaa adduunka ku qabsaday farsamo leh maanta China adduunka waa wadanka ugu taajirsan oo ugu qanisan oo wax walbeeta leh simply because of farsamo yaqaan they're golden goose of Somalia xalu dhahaa because waxay dhahay golden boat goose amala shimbirta oo maartay guumeysta some polarical geese waaye marka Canada waxa la jiray baalka jooga dagiiran ku eg maxaa la artoore ee doodola it's like a duck oo kan quruxda no waa shimbir duck amala goose allaha I don't know of Somali anyway of Somali dadkan waxay dhahan ma garan waa shimbirtii dahabka ukunta dhashay ma fahantay macnaha waxa waaye ukuntaas dahabaha marka waa inaad shimbirta ilaalisaa dahab mar walba ku siinaysaa amala ma fahantay waxaan ku leeyahay hadda dadka farsamayaqaanka waa inaad ilaalisid sababtoo ah dadka dahabka hawaay oo wadanka wax ku tari lahaa ama ku qaban lahaa ama maartay deeda society-ga no ala jira so sababtoo ah Reagan halbowlaha waa halbowlaha ma fahantay so marka dadkaas oo kale waa dadka halbowlaha absolutely no haddana kor loo soo qaado
I mean Waa like I said maxaa haddaay kor loo sheekadan qaaday? Exactly, that's what I'm waa la talking yasaa. about. haddaay Waxaas sheekadan haddaay aniga Dadka soo afkooya joogo xataa waxaan ka soo haddaay horjeeda ani aan sheekadan aan the same thing aan dhahay waayo Soomaano haddii xataa adigii aada samaynaynin which is fine ani ma sameynaa waxaas ma noqonayo Sax. laakiin qofkii samaynayay don't entertain daa ha samaystee yeah ma fahantay dhiirigeli Sax. qofka sameynaya farsamada wax qofka wanaagsan maanta oo kabo soo sameynayo oo Absolutely. maxaa la dhihi jiro oo birta soo sameynayo oo beerta soo sameynayo war how anakaniya waxaa u malaynaa maybe dhaqan oo waxaan la qabsanay ready made like wax diyaarsan leh inaan aragno sax waxaan u malaynaaba mataqaanaa The hard qof work dhana ma wuxuu rabno. u malayaa mataqaanaa inuu maanta kabo inuu soo gato inay laandheernimo tahay kabaha inuu sameeyo ma fahante war aniga niyo hooyaa igu qaldeysa aniga markaan kaba sameynayo but the same shoes wuxuu ka soo gadaya maxaa la dhahaa uu ka soo qaadaya waddan kaleeto uu dadka kabaan aad samaynaysid nin adiga adduun ahaan haddii loo fiiriya kaa lacag badan kaa taajirsan kaa laandheeraysan baa soo sameeyey baa soo sameeya You get what I'm saying? Because laandheer maxaa la daraadaan ka hadlay and I was listening to this podcast Trevor Noah podcastigiisa wuxuu dhahay laandheeraha lagu sheegayuu dhahay ma aha jinsi iyo cadaan iyo kan ma laandheero waa baasaboor uu dhahay baasaboorka dadka alan maanta adduunka markaad tagtid baasaboorkaada weji ku ah baasaboorka aawadatid Absolutely. anoo Soomaaliya hadda aan tago hadda waa aragteen alabooryaasha sidii Turkiya oo kale Qatar iyo Carabta oo kale markay ku arkaan waa lagu say waxaysan ku fiirnaan ma aragtay way og yihiin laakiin markii la arko qof kaleeto hadda dadkan ilmahan Carabta iyo Asianka iyo maxaa la jira America wadamada maanta xaaraanta ku haysta ninkaas baasaboorkiisa qof fiirinaya baasaboorkan dhahay oo kuwan kuwii sameynaayo waa gaariyada kuwii sameynaayo mise kuwii bararka sameynaayo qof dhahay maaha wadankaada raidkiisa la fiirinaya ma fahantay so wadankaada marka muxuu raid ku yeelan karaa muxuu ku hormari karaa kusoo dartid. waa inaad wax sameynaysid absolutely daraadada markii buuqna lagu firaa maxaa hal wuxuu Soomaali ay samaysan oo soo sheega hal wuxuu maanta Soomaali wadan la dhaho Japan Honda uu ku gaaray Honda maxaa waa bir la qaraacay tumaal waa Honda exactly Wallahi la feel bad. qaraacay waa exactly ya hadda kora shaqo oo markii oo high school aan ku jiray baa shaqo buuxsaday shaqadii aaday waxa la dhiibay Bruce waa one of this maxaa la jira Ford miya kambaniyasha oo gaariyada waa Bruce la dhiibay waxa la bahashan birtan aqraacaysa iyo xool shaqo waxa birta inay qaraacdo soo birta dabe soo maraysa anu waa qaraacaya so that it can dance ma fahantay si ay u qaloocato wasoo mara ku dhufana wasoo mara ku dhufana wasoo mara ku dhufana and then by break time I went home you're sick of this amala but because of birta xanuunkeeda iyo soo garba iyo xanuuji صح and I was like and then the maxaa la dhahaa the agency I gave the lady staffing lady I saw adadaniyo way shaqada and they paying good for that maxaa la dhahaa shaqada iyo waxaas so I said nah I can't do that and man because I said why can you not do that they paying good money because waxaan dhahay because bahasha sida loo qaraacay birta sida loo sameeyay ay kan sida loo sameeyay markaas waxay dhahday birtaas kaliya cost almost halka bir ay qaraacaysa aad ku soo agmarayso cost almost thousands $10,000 $20,000 ay cost karaysaa idhaada birtaas ay qaraacaysid marka macnaha waxaan ka wadaa imagine qofka kambanigaas iskale meequu samayn karaa how much uu samayn karaa so dadka marka birtan waxay u maleeyaan oo bira la qaraaca tumaala kana le beera la sameeyaa bro if you wadankaada Soomaaliya ahaan haduu produce gareynayo maanta Soomaaliya hadii la dhahayo sidii maanta loo dhaho Belgium chocolate sameeysa mise Ethiopia qaxwe sameeysa wadankaada hadii maanta mise Colombia miya I don't know wadan walbeeto waxba lagu sheegaa right wadankaada maanta hadii lagu sheegayo wadanka Moscow adduunka soo keena waay sharafka weyn ma jirto sharafka weyn ma jirto so ani marka coming back to the community fiican san ku sameyn karno muhiimadda waxa waaye I think waxyaalaha ugu xun waxa waaye runta san ugu reactionka aan runta siinayno qof markuu runta sheego qof walbeeto defense mode uu galaya mise wuxuu galayaa reactionka maxaa waaye in la sameeyo qofka in la dhageysto justice in laga hadlo warseen annaka justice oo aan keeni karnaa meeshan leaderski ilmihii waalidiintii dadkii waaweynaa waa in la dhageysta qofka markuu runta sheegayo waa in space la siiyo oo okay qofkan run uu sheegayo ma isla markiiba runtu afka ka soo naga daani adigana iyo hadalkan baan kugu nacna
qof dadaas asla hadalkan baan kugu nacnay naga daanay hadda dareed markaa sheegaysa arrintii oo Captain Gio kale telefoonka adhaysa markii dhalinyaro meel isla fadhiyaan dad dhan oo banaanka inta soo baxeen soo labisteen oo qada iskugu imaadeen inay nolosha ka wada sheekaystaan qof aad telefoonka jirar ku jiro very disrespectful way Captain Gio markuu sheega arrintaas qofkaas waa laga yaabaa inuu markaas he feels small like why you picking me amal baruntaas ma taqaana it will get respect Captain Gio waa la xishmeenaya just because of runtaas qofkaas u sheegay intuu uu adigu ku filmaas ninkan naga buriyano oo maanta dhan telefoon intuu diila ma taqaana oo hasta ka hadli lahaa absolutely qofkan wuxuu leeyahay qofkan wallahi bilaa ninkaas runta ku jeclaad maybe runta uncomfortable ka dhigaya bad runtu ku sheegaya ma fahantay so adiga ahaanta marka shakhsi ahaan would you rather have qof inuu hoos ka hadlo ama inuu banaanka soo fadhiisto runtu waxay badbaadinaysaa ilmo runtu waxay badbaadinaysaa reer familiyaala jira gabdhaha jira maanta oo victimize aroos ku jiro niman xataa jiro oo aroos xun ku jiro ugu jiro just because of hadduu maanta runta sheega mise guur ku jiro ma fahantay aroos is the like event go oo maanta hadduu banaanka soo fadhiisto dhoo warnimayo oo aniga maxaa la jira dhibkan ay haysto u arka shame inay tahay so just because of app iska ilaalinaysid maad ugu jiraysaa rafaad iyo jugdhabow iyo nafaqo xumo cunuga jira maanta waalidkiisa ay maxaa la dhihi jiray iskuulkiisa iyo nafaqadiisa wixiisa ay ka soo bixi karin oo u sheegi karin dadkii just because of hadduu sheego hooyada aabbaha saasa uga hadlinaa la leeyahay bar hadduu hadlo cunugaas inuu nafsadiisa iyo mustaqbalkiisa badbaadiyaa laga yaabaa صح ma fahantay I'm not qof fiiri that's different sababtoo qof oo maxaa la jiray people who are struggling ambala way ka duwan yihiin No, I'm not talking about struggling though. That's not what I'm saying. I'm saying like hadda waxaa jiro odayaal nafaqadii guriga intay seegeen jaad cunaya jiro oo nafaqadii guriga jaad ku cunaa odayaal waxaa jira markay jaad waayaan ilmaha dilaayo because of moodkaas ku jira so darooga hadday waayaan ku jiro habrooyin waxaa jira let's face it gabdhaha qaarkood habrooyin waxaa jira ilmahooda intay ka tagaan aroos aadayo let's face it ilmo waxaa jira baraada maanta abandon aha jiro so dhibkaasoo kale cunugii intuu arko soo fadhiisto dhaho aniga hooyaday aabahay dareen give me the best of life waxaan saan u ahay noloshan aan u soo galo hooyaday aabahayna lacagtii iskuulkeygii wixiiga jaad buu ku cunayay hooyadayna she never cared hadduu dhaho run waaye right reerkaas maybe waa laga yaabaa reerkaas in ay maxaa la dhihi jiray too late tahay but the next kid laga yaabaa inuu asagana uu soo hadlo oo wixii ay noqoto qof walba oo noloshaasoo ku jiro cunug walba oo noloshaasoo ku jiro I'm not talking about haddii maanta taa adiga ka hadlaysid waxaa waaye ciddaan hadday dhib haysato oo financial struggling iyo kaas ay tahay that's another sheeko waaye laakiin tan aan ka hadlaa waxaa waaye dad baa jiro ilmahoodii nafaqadoodii daroogo ku cunayo ilmahaas xaqu u leeyahay inuu meel soo fadhiisto uu dhaho aabahay wixii aan lagugu tala karo koriskayga iskuulkayga daroogo ku soo cun xaq buu u leeyahay inuu dhaho so what you saying is the same thing markay gabar parkast soo fadhiisto ama wiil soo fadhiisto qofka storygiisa iyo viewpointigiisa iyo daaqadiisa noloshiisa oo asaga loo experience gareeyo oo ka hadlooyaa stop this idea of qofkan sharmuud waay ama saan waay Soomaalidu xumeena dadka dhahayo dhageyso qofka right that's like the point pointiga wuxuu yahay hadda ka hor aan video waxaan ka sheegay arin oo qof taraag wado in uu maanta ceer qaato dad baa marka waxay dhaheen and this is why adaanki baa no deal so this is why noola caanaya but then fiirido waa runtii inaan face gareynaa baraad waa runtii inaan face gareynaa runtaa waxay tahay I remember that you were getting heat on that like because of waxa heatka keenaa wuxuu yahay mataqaanaa you waxa aniga hadda waxaan ka hadlaynaa silencing aan ka hadlaynaa brother aba si encourage gareynaysa because of fear adigiyo awoodo ina ilmahaada nolol fiican gelisid oo nolol fiican aysan war adiga maxaa saan ugu shaqeynaysaa maxaa taraagan wada maxaa duhurkaas ugu jirtaa haddii ilmahaada maanta ay ku dhex jiraan nolol waalan mise neighborhood waalan cunugaadana beri cunugan qoriga qaadana intuu qoriga ka keena neighborhoodka waay cunugan daroogada cuna intuu daroogada ka keena waalidkaan la socono ilmahan Mall of America aadayo buuqa fura intee ka keena waalidka waay so it all comes down to that markaan ka hadalna aan dhahno niyahow run waay taraag waa wadaa wiigi $10,000 waa samaysaa bar ilmahaada iyo nafaqadooda iyo reerkaada laga dareemo malahan waa ilmahaada ugu jiraan ceer haddii adiga lacagtaas aad samaynaysid absolutely what kind of excuse can you give me excuse ka ay siin kartid ama xataa aan dhahnaba waraha Soomaaliyan aan ka aamusno
وكان وامسنا وامسنا So what أرنتاس you saying is you are showing him like radical love with uncomfortable feedback hadda but longevity for future-giisa ay badbaadin lahayd Because of- intuu hadhow dhibaato markuu galo la dhihi lahaa social media kuwan waxaan tuugadii aqaanaa. waxa ورا حتى أساق إسكندا ورا حتى qof waxaan aqaanaa wgeeda exactly same way dhays ma garanay asaga he was gaariga wadi jiray mar walba and eventually wuxuu gatay guri lakini this throughout the whole time uu waxaan dhan sameynayay reerkiisa waxay ku jireen dadkan oo section أرتي وحسا waxaasay ku jireen right Yeah. and then eventually markii waa la arkay waa la qabtay saaxiibka ha u sameysaa la sidaas on you baashi and then I don't know what the consequence wixii lagu dhahay but like waa iyagoo lagu dhagana ogaa yeah marka aniga soo juc weyna ka yari qofka Situation kayga waxay kirada tahay- kaa bixinaysay intaasoo dhan caruurtaada lacagta siinaysay but you have the audacity to maxaa la jiray guri noocaasa oo qaali intaan u eg That is gadatid powerful. lacagta intay ka keentaa lagu qabsaday daroogo miya meeshay ka keentay soo caddee and then wuxuu dhahay intaas meeshaan ka shaqaysanayay fikiree marka I don't remember because it- people are I not don't doing the remember- math Somano I don't remember any jail la geeyey on 90 days waxa noocaas ku jiray I'm not sure but then I remember asagoo la lahaa maxaa la jiray lacagtii maaragtay oo loo xisaabinaa intay caruurtiisii ku jirtay waxyaalaha dhan lacagtiis wayna soo celisay la dhahay ogaa I'm not sure marka aniga isku dambeeyay yeah and very scary that's I waxaan know, it dhahay makes waay no sense I think. because hadda ma waxaan caadi. waxaan ka hadlaynaa taasa Somano qofkaas shakhsigiisa iyo noloshiisa say jirtaa but as a community as a whole haddii aan waxyaalaha xun aan celin waano oo aan qaban waano oo markaan aragna behaviorkan cause behavioral qaar aa jiro markii la normalize gareeyo brother hadda xanuunka lama dareemayo but 20 years from now wala dareemay waxaa waa is gonna catch up to you It's already catching up hadda Yeah, whole it's generation already catching up. yeah. way hoose kusoo dhigaysaa waxay noqonaysaa marka image ani you know laba mid soomaalida laba inay u kala saaraan waaye bahashaan ma fahamtay soomaalida laba inaan u kala saarno waaye bahashaan ma fahmino labadan u kala saarayna waxay tahay maxaan rabnaa sumcad inaan ka yeelano dadka iyo adduunka Soomaali ahaan qof walba Soomaaliya inuu ku noolaado Soomaali dad baa maanta brother ayagoo jaahiliin oo aqoon lahayn oo cilmi lahayn just because of wadankay ka imaadeen respectiga la siinayo keligiis ku nool صح. wadankaas lay ka dhasheen I will take a chance of him because of wadankaas oo ka imaada dadkaas waaye ma fahantay صح taas ma rabnaa mise waxaan rabnaa individual shakhsi midna inuu brother guri lala yaabo inuu ku noolaado midna brother uu qadeen waayo qadadii hataa ku adkaato because silencega waxaas keenaya soo mogid qofna inay qadadii ku adkaato qofna uu maanta brother alxamdulillah uu barwaaqaysan yahay silencega keenaya because of qofkan u jeedid wax qaldan inuu sameeyo uu behavior qaldan sameeyo uu wax qaldan normalize gareenay haddaan qabanno clean noqonayna markaan clean noqono qof walba opportunity u helaya qof walba markaas baraada merit ka sheegayso qof walba xirfihiisa iyo wixiisa soo hordhigaya dadka ma fahantay so silencega waxa community ahaan waa brother waxaan la dhahayaa the shame kan oo kale la dhahayo dadka qofka la ceebeenayo markuu hadlo waxaan la dhahayaa brother and you know qofa wax sameenayo lacag loo aruuriyo hala aamuso lacag hala aruuriyo maxaa la dhihi jiray halaga bixiyo halaga bixiyo nyamta hala geliyo gabar baa brother iyo wiil baa brother buuq isku furaya mise isdilaya laba gabar iyo wiil isqabo baa isdilaya isjugdhabaya intii brother arrintooda la xalin lahaa naga dhaafa horta qaylidan dadkan yaala maqlin sometimes waxyaalo qaar waa loo baahan yahay brother in laga hadlo oo banaanka la soo dhigo oo ceebta haddii kale ceebta haddaan normalize gareeno dadka noogu horeynayo saan u jeedna faysaskeena oo Soomaali faceka Soomaalida wuxuu noqonayaa qof brother ceebti normalize gareeyay ceeb ku soo gaara meeshan ku soo gaaray inuu dadka la bahdilo inuu dadka victimize gareeyo and then hadhoodi anakii oo dhan asfiirinayno wallahi billahi kanaawo qof walba qof walba uu ogyahay dad jiro TikTok qof walba ogyahay qofkaas inuu xun yahay qof walba la ogyahay but at the same time qofkan brother follows kina u sii badanooya waana laga aamus maalin walbana asagii waxa waaba wuxuu furtayba maxaa la dhahaa waqti iyo timeline uu furto uu soo post gareynaya waqtigaana soo galaa live hal soo daawado qof walba wuxuu daawanaya shame waa qofkan waxa loo daabanayaa just because of hal qof oo meeshaas dhahay ma jiro warniyo ninkan let's card dadka maxay dhahan alaabtan oo la dhahay hadda oo cancel culture ko kaleeto waxaas ma lehe
أنا كأنا سمعنا cancel culture brother. If we Somali waxaa when you see it you call it. I mean cancel culture meel xuna loo qaadi karaa but I need the two thing that ku dari kara out of this topic maanta dhan ka hadlayna dad badan iska dhaadhicini doono Somali ma nacbin anaka Somali waa dad fiican right waa dad ka dhalanay we deeply care about it and the image of Somali Mohammed iska dhaadhicinin oo ani safe ahay gurigeyga ku jira lacagteeda haystaa wixiyga iska haystaa dhibaato ima soo gaarayso wiligaa iska dhaadhicinin right صح this thing community-gaaga haddii aad ka soo horjeedid image-kaagana waa wadataa personal image Soomaalina geesaa ku wadataa hadda meel lagugu arko qaaliq adoo meel joogtiin the good action aa qabanaysid qof irid aa ka furta qof aa caabiso qof kaleeta aa caabiso dadka kale ku arkoy subconscious-kooda wuu duuboyaa way ku arkaan you know what haddii biri kamaan qof kale weydiiyo yoo Soomaali way xasuusanana Soomaalida dad fiican waa just because of Khaliq was doing the good thing right Yeah. it's a perception fiican ee jaa ka hayaan laakiin haddii dadka negative ka meel walba u dhaaftid hadda midkoo Jesse ma la dhahaa oo Fox News ka u joogo Soomaalida soo ugu tutumana ayaan hore ana ka naxay at the same time marka reflection hadalkiisa sameeyay oo uncomfortable meesha aan ka bixiyay everything oo sameynay macna leedahay waxay dhaheen raggan wadankeena oo imaadeen ana kale wax naga cunooyin maxay nagu soo tareen data center noocay dhiseen company noocay dhiseen kana marka fikirtid ay dhalo waa racist waa wicil dhale balaakiin runtu ka hadlooya Soomaan runtu ka hadlooya baashi way adag tahay برونتو كاد لا ما أنا حتى ما تقانا ما زو بوينتك أسات هذا شغو we don't have to build anything وإحنا بدنا قسم معها ضل كان أنجوجنو ودن كان maybe أجري ودن كان أنجوجنو إنا وح بلد كرينا معها لكن وإنا برا ودنا إمادي opportunity له لشقيستو حدي شقدي أواسي معناه هذا إيرتاني وحنا كلام حاله قلت الجلا قفك هذا كتالو إنه كسو كبسطه لو قمت لجلنين برا درمانته because marka adi hadda ninkaas aad dhehaysa waa lagu qabtay barada qofka kale oo Soomaaliga dad badan arka hadda eerta dhahayo nina maalin arkay cadaan oo dhahayo eerta Soomaalida funny way because of xatagaysa uu dheef familial Soomaali wada eer ku wada jiro baakin kana gaariyaasha ku paagaraysan waa barada Range Rover iyo I'm like how it's uncomfortable like in room gaarigan qofkan suuq keeni kara bentaman qofka eerta qaadana marka qofkaas waxaan u dhahay qof guri ku jiro qofna sambuus u gaday qaduu la yahay waxa la dhihi jiray uu wax ka raadinaya is because of qofkii loogu talagalay oo waxaan loogu talagalay eertan adiga oo lacag haysata ka hor joogis ka qaadanaysa hadhoodi markii adiga lagugu qabto just because of qofkan dadkan aan la noolnahay mise wadankan aan ku noolnahayna ma aqaanan wax la dhahay shakhsi مدو واحد سميه مدو ولا صار Soomaali واحد سميه Soomaali Asian عدان even though عدانك oo la protect gareeyo oo hoos wax looga dhigo laakiin muhiimadda waxay tahay wadankan aan joogno data center inaan dhisna maaha inaan gaaray habartoota u sheego waxba yaa u dhisin maxaa anaka naga gal America inaan wax u dhisma ani oo imaadeen no waa dhihi kartaa ma fahantay laakiin image-ka iyo waxa ay create garanaysa ka fikir qofka bariya Soomaaliya generation-ka soo socda oo Soomaalida sumcadooda iyo sharaftooda war adi hadaa cuntid maanta aad dhahdid bari aan wax iga gala malaha dambaraada maxaa u noolnahay nothing hadaa dhahdid brother war ii buuxinayo ana maxaa iga gala ma Soomaaliya ahay brother but ogtahay waxaan adiga hadaa buuxsatid magacan iyo bahdilkan iyo waxaan inuu Soomaali u imaanayo waxaan eertan adiga hadaa qaadatid lacagtan iyo leenkan qowmaamadii loogu talagalay oo single mother ka ahado rafaadka ilmaha ku kornayso loogu talagalay eertan in loogu diiday because of Soomaaliya because Soomaalida kale taa waxaan leenkan soo halaysa mise ku soo maxal dhigi jiray kaadisay hadii loogu diidayo maxaa build garaysa laakiin ka waran hadii la dhahay hadda qof cadaan oo ceer qaadana hadii la arko maxaa la ma taqaana wallahi cadaan haduu ceer qaadana waa ka taala lama dhahay ma shaqaysto cadaan ceer soo doontay waxba khaldan يجينا image كمان image كله just like ماشي image كله هدام فيرن just talking about image له image كايب ما فاهمينه ايجيان كم عالو ليه ولا ايجيان كسانوي اسكول كي كوفي عين قف ايجي كم بني انا لقى just because of قف ايجيان انه كقاطو ايجيان قف Soomaalina markii la arko dadkaaniyo dad waxa waay simple shot ka raadiya adana dadkeena Mareykan joogo Soomaalida almost dhalinyara u badan right dadku waa yeelka waa la gartay waxa laakiin adoo 30 jir 40 jir shaqaysan kartid ana I feel like marka shaqaynaysid more productive asoo gelinaysa nafsadaada
jirkaaga ما waa لكن almiiteynaysa waa socotaa ولا شقينو يا لكن Yeah. سو ما اوغيدو ولا شقينو ما عمل شقينو ما Yeah. ولا شقينو يا بد انك يا waxaan u fiirinay adigiyo shaqeynayo aw waxa rabtaa wixii kale loogu inaad ka talagala sii dadka cuntid. maskiimiinta oo maxaa la dhihi jiray sidii dumarka Iyo maamo oo ilmaha single lagu mother, deeriyay ilmaha yar iyo wixii Yeah. loogu talagalay aa rabtaa adigii oo nin xoog leh oo wadankan wax ku bartay mise xoogiisa iyo xiniyiisa ku shaqaysanaya aa rabtaa waxaas inaad la qaadatid qofkan inkamkaadi yaa qarinaysaa gabadhii waxaad dhehaysaa wax noo kala qariyo adigana saan u buuxsan anigana saan u buuxsanaya ama maxaa la dhihi jiray saan dhe kan dhe gurigaada raaxa ma ugu noolaan kartid Carruurtii yaa waalan hadhow waxaa leedahay carruurta waa sheegay. waashan waa cadda ilmahan Because Mall of lacag ayaa America laga lasoo celinaya waxa loogu celinaya saas waay and you know one last minute aan ku darsani karo Soomaalida inay ogaadaan lacagaha iyo waxa dadka isdawamariyay 270 milyan kala cuna la dhahay ilmo Soomaaliyeed lacagtooda laga cuna waay ayakee heli lahayn right taxiga ee dhahayn oo cadaana ka soo cuna noo cadaanka ma cuno qaaliq iyo ani iyo Abduul oo adag oo shaqadooda shaqaysanayo oo fair share kooda baxsanayo canshuurta ee ka imaanaysa Yeah. right so wax walbo ethical oo xalaal ku jirta loo isticmaalo haddii kale morality lama qabi doono Yeah. qofaa dhahay eblay way soo qaabise wixii kalena waa laga aamusay Like this, marka at the end of the day hataa even haddii aad saas ka fikirin fiiri carruur aad xaaraan ku korisay carruur kuma noqonayso at the end of the day haddii aad wax xalaal haddaad is cunaynin ducadaada iyo salaada tukanaysa iyo wax xalaal waxaad doonaysa dhan adoo maaragtay maxaa la jiray biyo bacaad lagu lisay. bacaad lagu Las shooday bacaad lagu lisay. something like that yeah saas oo kale waay so waxaasna waxa kama kacay bul waay waxaas إن شاء الله تعالى waxaan ku soo aan gabagabeynayna intaas maanta muhiimadda aan ka hadlayna waxay ahayd waxyaalaha qaldan silence-ka waa inay dhibaatada uu leeyahay markii la aamuso podcast-gan anaku waxaan u sameynaa waana dhihi kartaa markaana daawanaysid warniyow dadkan maxaa la dhihi jira Soomaali caay inta ugu soo fadhiisteen haddaa caay u aragtid problemkan ka hadlayna adi waa fahantay runta waa uncomfortable but at the same time na runta haddee badato dadkii aa toosay community-gaa toosay ilmihii aa toosay maxaa la dhihi jira dowladdii aa toosaysa ma fahantay so marka walaalayaalow haddaa run aa aragtid ha lagugu naco intii been lagugu jeclaan lahaa runta ha lagugu naco because been haddii lagugu jeclaado false information adigiyaa false dadkiyaa false wax walba false waay intii laisku been guuri lahaa runta ha la isku sheego wax qaldan haddii la arko ha la isqabto videoga insha allahu tacaala make sure inaad commentigaada wixii adiga aad isleedahay oo maxaa la dhihi jira kusoo dari kartid kusoo dar haddii jirto situation aragtay adigoo ka hadli kara aad ka aamustay aanad ugu aamustay sababtaas inay ceeb ay kaa soo gaarto mise inay community-ga ay kugu jaraan noo soo sheeg situationkaas insha allahu tacaala wiiga dambe baan aan falaqeynaynaa mise ka wada hadlaynaa insha allahu tacaala marka comment share subscribe asalaamu calaykum